الشركاوي أو معلومة أو برنامج كيس عفيفة كاس ورنتي أدون الجحي كنت عارضة إلى الشيخ أبو سلول فضيلة الشيخ كلاب سلول أنا مصر مش سوكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي وحافة حتى أن الكوري كريم في أحماتا إن أن قلتاكنا قلنتي رقي الدومة 10 سنة ميل كفك دولكينو هو يبرسمات الله بسر علي أن كالسوا عديدي كلن كان يسودوينتا معها وحمانتا باللوذي كلن كي سهل يدبكي زوبعي ma aha wax markaa bilowday kulankii koonis iyo dadkii faraha badnaa ma aha wax la soo bood ah oo markaa bilowday laakiin waxaan aad ugu badinayaa 10 sana ee aan garab taagnaa la hadlayay qalbigana kala soo hadlayay ummadayda Soomaaliyeed waa 10 sana beer soo baxaysay la beerayay miraheedii ayaan arkaa taana waxay dhammaan u tahay qof walboo Soomaaliyeed inuu u dulqaato dalkiisa qarankiisa in wixii maanta aad qabatid aadan sugin markiiba inay mira dhalaan sabirka ayaa laynaga doonayaa runtii sanooyin ayaan hadlayay sanooyin ayaan duubayay xalaqaad fara badan duubayay ramadaanka u badan laakiin oo weliba aan qol cidlaha ku duubayay aan la'aa dad aan hor istaago qaahiran ku noolaa dad lama hor istaagi karo laakiin mirihii eeg sabir badan markaan yeeshay oo aanan ka daalin aan daba socday dacwada miraheedii mawaaka maanta in markii la yaarkaba la dhahaya alla waa walaalkii ii soo baxayo la dhegaysanayo laabta iyo dhigaha la إليك الدعاء باتهين إليك المتعلمين باتهين وحان آد بالغيابي قال لي انت مركان هور استاغو أوركوضا وحكا بوحيا أيان آد بالغيابي هبيت معانا نمبر المقالة إسلا قال في سبحي آنيني هبين كيبان ليدة تغي وشيان بيو أنو عشيني قال لي يردي إيسو أورورتين waxa ugu horeeya oo ay igala hadlayeen anoona waraysanin waxay ahaayeen fasahaadka ka jira xadka leedahay magaalada mid walba uu doonayo gabar walba wiil walba in dadkan la hor istaago oo la wajaho lala hadlo aad baan ugu farxay in dhalinteeni ay wax qaban la'dahay laakiin ay wanaag badan uurkooda inuu ku aasan yahay aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan marka ugu horeysa taa xusuusin bay ahaydeen aan si khaas ah ugu mahad celinayaa madaxweynaheenii hore xasan sheekh maxamuud runtii madaxweyne keliya iima ahe waa walaalkay waa macallinkayga waa runtii aabe qalbi wanaagsan aabe murabbi ah runtii isaga keliyana ma ahe waxa aan bartay waa reerkiisa runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay qalbi wanaaga laygu soo dhaweeyay iyo waliba inuu wali u taagan yahay waa da'weeyaan inuu nastay ahayd laakiin eeg wuu diiday inuu jiifto wuu diiday ilmihiisa wuu karaa inuu yurmutuus ka tago uu raaxaysto wuu karaa laakiin wuu diiday inuu maanta idan hor fadhiyo idinkoo dhalinyaro ah inuu xafiiskiisa isagoo daalan uu fadhiyo inuu reerkiisii ciyaalkiisii ka fog yahay inuu ku haminayo uurkiisu ka guuxayo inuu qarankan wax u qabto inuu dhalintiisa rag iyo dumar wax u qabto wax lagu farxo waayo aaboodba saasaan ka rabaa qaar baa intay maaragtaayay xukun soo qabteen haddana runtii aad iyo aad u fogaaday dhalinyaradii ka fogaaday wax xun ma aha laakiin weli eeg dadaalka uu wado iyo kulankan qiimiga badan maalinna ma dhaco bal waa maalin walbuu sidaa u hor fadhiyaa allaha barakeeyo dadaalkiisii juhdigiisana allaha la gargaro runtii garbaha la shaqaynayana aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa
إن قفك وناك وذا لقرب يستاقوا حاد يادو قيمي بدن ويا دل يرو أنوغو سيدا يدوبا ما هيني سياسية سياسة دنوا رمتي ما صوبيو سياسة هذا هو قلت هو هلينا يا لكن وحاجرة وحان صوبرتي dhiigayga iyo dhuuxayga ku shaqeeya waa diinta iyo dacwada iyo inaan dhiso nafaf shaqada aan haya waxaan leeyahay waa shaqo aad iyo aad u adag waana shaqo sarreysa waa shaqadii rasuulka lala soo saaray sallallahu alayhi wasallam shaqada aan haya iyo booska aan isleeyahay arday baan ahay imika sheekh maahi laakiin booska aan haya dacwada iyo isxilqaanka waxaan isleeyahay wax aan ku doorsanayo malaha haba yaraatee haddii aad idhahdaan madaxweynaan kuu dooranaynaa hadduu madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhaho intuu maanta ii yeero kursigan ayaan kaaga kacayaa caawa ku fariiso wallaahi thumma wallaahi baan ku dhaartaye kursiga iyo kursiga Trump iyo adduunka oo dhan hadii la isku daro marnaba kuma bedelanayay booska dacwada maxaa yeelay madaxdeena wadan walba madaxa u sareeya ayuu la hadlayaa waa malaayiinka uu u taliyo aniguse waxaan la hadlayaa waa maxay daaci walba la hadlayaa gaal iyo muslim carab iyo cajam madow iyo cadaan insaanka oo dhan gaal iyo muslim baan la hadlayaa marka anoo intaa la eg oo intaa la hadli karo wax gaarsiin kara in aan ku soo laabto oo ay dadka qaarkii igu soo leexiyaan Kenyawi waa siyaasi Kenyawi $100,000 ayaa looga soo tuuray villa Soomaaliya siyaasiyiin buu u ololeynaaya hadal sax maaha hadal sax laakiin maxaa la inaga doonayaa social media waa falsafad badan yahay umadeenana waxa lagu fasaadinayo waa social media idaylkiin waa kuwan mobilad wada haysataan kan waay kan dadka ama lagu dhiso ama lagu dumiyo kan weeyaan marka han noqonina kuwa cilmigooda iyo aqligooda qalinkooda xoogooda iyo xoolahooda ku dumiya qaran ku dumiya nafaf han noqonina kuwa ku dhisa noqda marba hadaad juhdi bixinaysaan gacantu wax qorayso afku hadlayo marba hadii dadaalkaas aad sameeynaysan dididaysaan soo jeedaan waxa loo baahan yahay waxaad ku soo jeedaan ha noqdo inaad qaran ku dhistaan waxaad isugu imaadeen waa inaad qaran ku dhistaan waa in aad maaragtay ummad ku midaysaan waxaad ogtihiin oo aad garanaysaan walaalayaal dhalinyarada waa kuwii dhabarka u noqday kaabay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam inuu qaran dhiso odayaalkii oo dhan gadaalay ka mareen way diideen bal way caqabad bay ku noqdeen oo way hor istaageen laakiin dhalinyaradii yaa ugu yaraa cali ibn abi talib oo garanaysa 8 sano jiray 8 sano uu garab istaagay ugu weynaa 26 jir ugu weynaa oo Abubakar waa la garab istaagay qaranka xoogiisii baa dhulkan xoogiisii baa tihiin runtii waad ku dhalateen u dulqaata dhulkiina in badan buu idiin soo dulqaatay dhulkiina in badan buu wallahi waad ku dhalateen waad ka cabteen waad ka cunteen waad ka huwateen beerihiisaad qodateen runtii uu daalay abaar weyn buu idinku leeyahay dhulka hooyo ayaa la yiraahdaa eega ilaahay baan ku dhaariyay hooyo ilaahay xaq wuxuu siiyey 75 xooggeena xoolaheena farxadeena wehelkeena wax qabadkeena 75 aabaha 25 baa la siiyey dhulka hooyo ayuu la mid yahay bal waa ka sii weeyahay dhulka aad arkaysaan ummad waxay qiimi ku leedahay inay leedahay dhulna waxa dhisa waa ubadkiisii aaway ubadkii uu dhalay marka dhulkan aaway qarankan dadkiisii aaway 30 sano inagoo nool say ku dhacday in ay dhulwaayadu kala jiitaan sababku dhulkii inuu ooyayo oo uu qaylinayo say ku dhacday taasan la yaabanahay xageen jirnay hooyadeena markii la kala googoosanayay hooyadeena markii khayraadkeeda la urursanayay markay noo qaylinaysay xageenu jirnay haddaynu maanta sidaan ugu urursannahay madaxdeennina aynu hor fadhido in aan garbo u noqonnaa laynooga baahan yahay in aan dhulkan xaqiisii soo celinno isagaynu sahan u nahay haddaynu joogno iyo haddaynu ka maqannahay isagaa ina dirsaday waxaynu u noolnahay waa qarankan inaynu ilaalino waa wadajirka iyo midnimada inaynu ilaalino
إن أن دول كان أسوء علينو علمينا صابرني بوباهية حوجينه وباهية عقلينه وباهية محتركينه وهلكينه دول كان وباهية هذا الكسيد دارين مايو حولوا وين وإذيا لا إلهي هيدن قرب قالين نالي يرو حداد دون إنسان إن آد هاوشان كبولي ستان هاوشان علمي مباهنا هلتي مركات ربطان هاوشان ومباهنا سود إلا حدو ليس سوق حيو نار لا حدو جرك لغا شقيو ومباهنا هاوشان قبيل مباهنا هاوشان هل الشيء بينو باهن تحي أنا اسمع قرنا هاوشان وحي أباهن تحي قلب نظيف أهي أباهن محيالي حوق الدينتين وحو صاري قلبك رسولك وقرنا سنسو يربا قلبك سيطلع دقيلوت لا إيمان لو قبل اليوم أركا لو نظيفي كنت لي 6 سنة مركي لقي ماشي اللي يراهدا ليلة الإسراء والمعراج أو حلقي أمانة لو سوديوي الصلاة أو نظيف يكون نقله كامية يكون نقله وحكا لغا ما شقيني هاي قلبي سيبا لنظيفيي سيئو أدس الدولة مركي قلبي لو نظيفيي وكنتي صلاتنا وحد قرنا يسان مدينة مركي تغي الدولة بودسي قلبي ومدى إن قلبي لغا كامية لو باهية لبضوا ولا رأها ويكون نوريين قلبي وقرها يو التقوى ها هنا قلبي هلكا أيو إلهي إلى حدينا رسولنا صلى الله عليه وسلم مدينة مركي أوتجي وغسرت هي أوس مركي وانتصو سنة ازدقالية ليش السيالة دونايا سالك ليش السيالة وعلى يلي أقول كتاب القرآن كنا أولي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هكذا تجينا لي حبل الله قد صدى وكي الأمة الشيئنا يوعى لي حداثنا فقيلها محمد أو المدينة أو في قدر عسيلها لعلها أدوك أوقا حتى قفل ما جبت سنبوح لها حتى كل وقت مدحته ونبيل لهاي حتى محمد بسيل لهاي لبئس معاذ الكلمتين سيأكل الجامسو لكن إلهي ما قلبي وضي شكرا إلهي الفوز مكاني محمد صلى الله عليه وسلم أياه الحلور استاجي ومدى استيارسا قلبي نظيفة ومدى وحان الله إن أدله الاستاجان قلبي نظيفة إذن بانا وحان المسؤول كيهي ماشي موجوده وكان إلهي بل كان يقرك المكان يعني هو قابلات كنين إنسان متغالا وإنه ولي شغل ولدالين يدينه الجولان يدينكم قلبيين اللي كانت تكسلي يمسح معنا يمسح قلبي عقوشك إنسان كركا ورشق إنسان مدهدنا من قلبي نظيف قلبي جعل كركا قلبي يجعل قلبي ليس لهم استعجال وواجب ديني معها وحنا البجايس ومعها مركب قلبي يدنا مهجاتنا قلبي يدنا منبتنا محل الإلهي قلبي يدو إيجا قولنا مقرب كلمة إلا إلهي إننا كالما يمها نرم كيلا إلي استعجال من إلهي روح القدس ونروح الجير أفضل أجل وحنا البجايس وقلبي يدنا الديار منها إنها نظيفة هاوشي إنني نقول أوضى مقاشين وحنها وقرن ديار مولها مش هذا لو حوى وروح عليها نحن يا وسي قلبي له وحوى بوينه قبنينا قلبي ما كقبنينا ولا أمسية ما كنا نحن مش عارفين أنتنا وضع الشقين شقين مش نظيفين جدنا أنت نومك ولا تقدر برنا شقين عارفين والله هو أنت عارفين وقلبك نظيفين قعمها تاجانا waxaad ka ogaataan iitaaga waxaad ogaataan gacmaha aad taagaysaan ballantan aad qaadaysaan ma aha madaxweynaha keliya iyo inuu arkayo wallaahi garbaha waxa saaran waa malaa'ig gacmahan maanta taagaya ballanta qaadaya
وقعمها إله إليه وتكلمنا أيديهم قعمها وإن الله ضلايا الشيء ما أنت إني بلن قادين حتى ومرت إني يوفيين إني كبه هذا الشيء ما أوفيين بلن قادين سبقنا موسقاننا تركيا الله يبارك الله يبارك أبي إلهي وحكبني أوسعت كمان إنسان إلهي حقها إلهي عقيل من وحدك لأن يرى القارب ولما أمكن سنة جربور كانوا يقولون هاي إلهي وحكبني كل حلال على الله يسير كل حلال على الله يسير إذا كلهم فتن الله يسير إلهي حليم وأسطورة إنت نعيد المنزل كل قارب بالي كل صالح على الله يسير كل صالح على الله يسير إنت لو جبتر الله يسير وإذا كنا إليه نحن كنا نقول لحظنا آتيات محمد رواتي نفسك على كل يوم يقولون هنا وصدق قاليا أو في سيد أبحي ولا الحي ونحن نعيده آتيات محمد الله السلام ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحرمت الشرف وين نوع إلهي نعم وحمدنا إنه شيخي دتكو اسكو عريريان اسكو دلان سي وأركان ودقيستان محاضرز إنه مانتي إنه يمد حرمت حزبك إذا هو نبض إياه مركة سيو برنامج كيو ودي وعيقرين تديمات غيب كمدا وناصيبه شيخ وهم العلين إنه بقول كيف بقول وقفنا يراه ودليرة هالكان فإذا ما أنت يكون ذي سكر والرول ما هذا المقطع وميسي رونالدو نقول بدلك أقول بدلك شيخ إنه الله بركاته ونقوم علينا إنك نبغي كاسوي هي مشروع ولال عفي ولال إلا ولال كعفي ولا شيء عفي مشروع إسعافنتها dadka Soomaaliyeed ugu baahan yahay oo Soomaaliya oo halkaas fog gaarihiisa uga yimid halkaan u yimid inuu kalimooyinkaas dadkeena siiyo dhalinyaradeena siiyo ciidankeena siiyo dadka siyaasiyiinta uu ka horjeediyo siiyo waan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa noo soo diray hadda kolley nabi noo soo diray sugi mayno laakiin umadu iyaga wararka maxamdiya dadka ambiyada dhaxlay waa cumar cumamadeenna siyaasiyiin ugu wadeen laakiin shaqeeyaawin waxaa dadku u jeclaadeen waxay tahay dadkooda isma yidhi qofka uusan cadow lahayn qofna uusan saaxiib gaara lahayn dadkoodana saaxiib leeyahay marka shir aad baan kaga mahadcelinaynaa hawleena galaan kasii wadanaynaa waan ku difaacaynaa aad baan u mahadsantahay jazaak allah khayr